hooyo macaan bal muuqaalkeeda fiiriya sida uu yahay hadda maanta bal sida ay indhaha ilaa wajiga dhan ay ugu bararsan tahay bal eega السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعنو ونكسد داودياشنا ميلو بو دنيا دافيدا naga daawanaysaan halka uu barta aan ku leenahay YouTube-keena Aisha Lifestyle diitada booqashada ugu horeysay waxaan si naxariis ka gacal walaanimo ku dhahanta kaaga codsanayna inaad channelka ku soo birto subscribe noo saarto gambalaalka rukumo muuqaalada update-kan halkaan soo geliyo si sanad ku dhaafin haddaba haddii aad hor nooga midna ku leenahay muuqaalka sharaftiisa iyo karaamadiisa inta bay isugu dartid muuqaalka lacagta isku saar si uu baaho inta badan bulshada Soomaaliyeed ku gaaro muuqaal argagax leh ayaa isoo gaaray daqiiqada ka hor inta aan halkan soo fariisan isla markiina waxaan go'aansaday inaan halka idin kula wadaago hooyo macaan steel waa hooyo Soomaaliyeed waa gabar Soomaaliyeed waa youtuberist caan ah runtii ay aad u wada garanaysaan taa oo maanta shalay shirqool halis ah ka badbaaday halkan waxa idin kaga muuqdo waa sawirkeeda ilaahay baa idin ku dhaariyay sida muuqaalkeeda mar kaliya loo bedelay bal eega waxaan halkan u fadhinaa oo saacad walba idinkaga digaynaa dhibaatada ku soo korortay dalka Kenya inay tahay mid halis u ah ummadda Soomaaliyeed gaar ahaan lagu bartilmaameedsanayo gabdhaheena sharafta iyo karaamada Ilaahay u dhameeyay daqiiqada ka hor ay markaan muuqaal halkan idin kula wadaagay oo aan idinkaga digay war Soomaali Maxameday is ilaaliya dhibaatada ku soo korortay dalka Kenya mid la dhayarsan karo ma ahan hooyo macaan bal muuqaalkeeda fiiriya sida uu yahay hadda maanta bal sida ay indhaha ilaa wajiga dhan ay ugu bararsan tahay bal eega haddaba waxaan halkaan idinku hayaa isla hooyo macaan oo ka sheekeynayso sida ay wax u gaareen iyo sida ay wax u dhaceen waxay noo sheegtay in ayada iyo wiilka carabka ah ay wada shaqeeyaan ee dhanka shaqada ee howlaha isla wadaan haddaba hooyo macaan iyo waxa wada socday wiilka ganacsiga oo ka dhaxeeyo ay ku sheegtay inuu yahay wiilka carabka ah haddaba waxa ay sheegtay in howlaha subaxii ilaa habeen kala maarmaan ay tahay in howlahaasi isla wadaan waayo waxay ku sheegtay inuu asaga afka Swahiliga amba afka wadanka looga hadlo uusan aad u aqoonin oo aad u yaqaano Carabiga kaliya sidaasna ay tahay inay mar walba howlaha isla wadaan haddii ay tahay adeega ee suuqa ka soo adeegayaan iyo haddii ay tahay wax gadista oo loo geynayo gabdhaha Soomaaliyeed markay alaabta ka iibsadaan ee u baahan yihiin tarjubaan afka Carabiga maadaama dadyoga qaar aysan si fiican u aqoonin sida ay tahayna ayadi ayaa howlaha isku wato haddaba waxa ay sheegtay mar allaala markii howlaheeda ay soo dhameysteen ayada iyo wiilkana ay sidaas u soo aadeen xaafadii amba reerkii gurigii ee degreed hooyo macaan mar allaala markii guriga timaade ay wada yimaadeen ayaa wiilkii wuxuu u baahday waxyaabo gaar u ah inuu ka soo iibsado dukaan aan sidaas uga fogeyn laakiin waxa ay sheegtay inay halkaasi ku diyaarsanaayeen tuugo halkaasi mission ugu dhigayay hooyo macaan oo rabay inay afduub u geystaan mar allaale markii ay albaabkii guriga ay isku dayday inay garaacdo waxa ay la kulantay tuugadii oo ku soo yaacay ayadii iskuna dayay inay xoog u qabtaan laakiin nasiibuna waxa isku dayday inay ka faa'iideysato inta ay wada qaban waxayna bilowday afka labadii inay furato ay qayliso una yeerto dadka guriga ku jiray iyo wiilkii doontay waxyaabaha gaar ku ah ee dukaanka uu ka doontay haddaba waxa isku soo baxay gurigana waa laga soo cararayo dadkii waxay ku dhiifoonsanaayeen amba ay dhagta ugu taagneed xaaladaha xun ee magaalada ka jira qayladii hooyo macaan qof walba markuu dhagiis ku dhacdayna wuxuu u soo cararay dhankii hooyo macaan isla markii hooyo macaan waxa la sheegay ee hadalkan inoogu sheegi doontaa in mara ay u diyaarsaneed dadkan ee u diyaarsaneed maro kullay ee ku jirto waxyaabaha maandooriya maskaxda amba qalbiga amba runaantii suuxinayaba alaabtaas ayaa sanka laga saaray hooyo macaan kullay intii ay qeylinaysay amba isku dayaysay inay istifaacdaan dhaawacyada halkaan idinkaga muuqdo ee wajigeeda ka muuqdo ayaa ku dhacay hooyo macaan inna lillahi wa inna ilayhi raaji'un nasiib wanaag waxa isku soo baxay dadkii guriga ku noolaa dadkii jaarka ahaa iyo wiilkii hooyo macaan la socday oo soo cararay bal si u badbaadiyaan
haddaba raggii ugu talagalay shirqoolka ahaa inay hooyo macaan afduubtaan ayaa waxaa la sheegayaa in ay halkaas ugu diyaarsaneed mooto bikibiki mootadaas ayayna ku dhaceen halkaas ayayna ku carareen haddaba waxaan rabaa inaan muuqaalka hooyo macaan oo hadlayso inaan si wada jir ah mar kaliya aan u daawano aniga ayaa 2 jeer ayaan ka badbaaday shaqool oo yani isku day sameynayaan in aniga ay afduubtaan camal mar taxi ayaa naloo adeegsaday oo yani guri hortiisana loo dhigay marna aniga ayayba dhaawacyo isoo gaarsiiyeen labada marbo markan hadda ay indhaha igu dhufanayaan hadda waa artaa maanta indhaha waxa qaba muraayadihii indhaha ay igu jiro iftiinka zaidka ay dhibaan 3 bari ka hor oo maanta ku jirto ayaa isku day in aniga ay afduubta camal isku day laakiin waxa ila socday wiil kamida wiilashan carabta ah oo alaabta ii hagaajiyo xaafad ayaan alaab geynay ya markuu yani isku dayga dhacaayo xaafad ayaan alaab geynay gabar alaab naga hagaajisata loo dhameeyay alaabtiyaan qaadnay marka gabadhii alaabta u geynay markaan gabadha alaabta u soo rakibnay oo iskugu soo xirnoon ka soo laabanay aan gurigeena u soo socono taxi soo qaadanay taxiga ka degay gurigeyga hortiisa wiilasha alaabta ii hagaajiya carabta meesha alaabta lagu hagaajiyo waxa dhan waa aniga gurigeyga isla meesha hal meel ku wada noolnahay ma fahanteen taxi markaa ka degnay aniga yarkii gadaal u laabtay marka dadka marka waa dad already si diyaar ahaa marka sheekada ay dhacday albaabka aan qaraaci reebaa lagu bilaabo marka waan qayliyay marka telefonkayga iPhone-ka saas u heeyay waa qayliyay ayman u dhawaaqay aan qayliyay asaga wuu soo fiiriyay marka ilaan mana iga fogo wuu ii dhow laakiin zaid igama fogo inta soo orday arkay nimankii mid kamid ah wuxuu soo bixiyay maracad sanku iga saaran waa dhacay marka wiilasha ay qaado guriga igaliya hataa wiilkii soo ordo qayliyay iyagana marka waxay ku dhaceen bigi waa carreen anu waxba u jeedin indhaha dhan ay xanuunay oo waxba iga dhuftaan maano indhaha waana jiifaaba oo qof already sunti bahashi ay ku saaqda ah wax aan kala garanayo ma lahan kadib ana guriga joogan soo baraarugo sheekada dhan liiga sheekeynaya marada markuu soo bixinaysan kale iga saaray waxa dhan war nimanka marka arkab waa runtii aad baan uga xumahay dhibka ku dhacay walaasheena Soomaaliyeed hooyo macaan Estelle ahna YouTubers aad loo yaqaano aadna loo xushmeeyo annagana aan aad u xushmeeyno ilaahay waxaan ugu baryaynaa marka hore inuu caafimaad degdeg ah siiyo oo ilaahay caafimaad taama siiyo waxaan leeyahay marka gabdhaha Soomaaliyeed meel baduna daafada ka joogtaan haddii aad tahay gabar caan ah iyo haddii aadan ahayn gabar caan ahba haddii aad tahay wiil caan ah iyo haddii aadan ahayn wiil caan ahba qof walba waxa waajib ka saaran inuu noloshiisa asaga ka fikiro inta uu mas'uulka ka yahayna uu ka fikiro waxa loo baahan yahay sideedaba inaad dhibaatadan oo kala markay jirto in lees aruuriyo lees ilaaliyo lugtaada meesha dhigaysan saantaada meesha dhigaysan aad ka taxadarto ilaah ayaana ilaalin karo laakiin dadaalku waa lama huraan halkaas ayaan ku soo afmeerayaa dhibaatadii ku dhacday hooyo macaan oo run ahaantii aan u dul qaadan waayo inaan ka aamusnaado idinkana waxay idin tahay tani tusaalo aad ku tusaale qaadataan in qof walba oo maanta laga helo meel cidla ah inaan la dhaafaynin ilaahay waxaan ka baryaynaa musiibadan halkaani ka socoto inuu ilaahay barbarkeeda na dhaafsiyo ama barbarkeeda na mariyo ilaahayna inagu shartiro ilaahay waxaan ka baryaynaa idinkana aamiinta inoo dhaha inta maanta gacan shaara ku jirto ee dhibaato ku sugan inuu ilaahay gacanta cadowga ah ka soo saaro ayaga oo nabad qaba oo caafimaad qaban familiyadoodii walaalahood ehelkoodii iyo dadkii jeclayba inuu ilaahay dib u soo celiyo idinkana aaminta ayaan ka rajeynayaa haddii ay tahay booqashadaada ugu horeysay waxaan ka codsanayaa inaad channel ku soo birto subscribe noo saarto muuqaalkan aad like saarto si uu u baaho muuqaalka xiga waxaan